qaar ka mid ah madax dhaqameedka ka soo jeeda gobolada Saraar iyo galbeedka gobolka Sanaag xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo haween iyo dhalinyaro iyo dad kale oo aad u tiro badan ayaa maanta waxay gigida diyaaradaha magaalada Hargeysa ay si ballaaran ugu soo dhaweeyeen wafdi uu hogaaminayo Suldaan Cabdicasiis Maxamuud oo ka mid ah beesha Cabdalla oo Durxmeen ee degan maamulka Puntland isla markaana ka soo jeeda bulshada degta galbeedka gobolka Sanaag waxaana qaar ka mid ah madax dhaqameedkii iyo haweenkii ka qayb galay soo dhaweynta oo halkaasi warbaahinta kula hadlay ay si ballaaran dalkooda hooyo ugu soo dhaweeyeen madax dhaqameedkaasi ka soo kicitamay magaalada Muqdisho waxaanu maanta halkan ku soo dhaweynay oo nala jooga wafdi uu hogaaminayo Suldaan Cabdicasiis Maxamuud Afguduud caaqil cilmi iyo caaqil Cabdullaahi niyad khushuucsan iyo gacmo furan ayaanu ku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay ku soo dhawaada dalkiinii iyo dadkiinii maanta si weyn oo kaliya laaba ah ugu soo dhaweynay airportka international cigaal madax dhaqameedka salaadiinta beesha Durxmeen ee ku soo noqotay dalkoodii iyo dalkoodii waxaanu leenahay ku soo dhawaada dalkiinii iyo dalkiinii haddii ilaahay maanta soo ururiyay oo Durxmeen Muuse ay wixii naga maqnaa wixii joogay mooyee wixii naga maqnaa madaxdoodii inoo timi alxamdulillah ma sha Allah baa leenahay kuwii jiray oo joogay oo soo xoojiya dalkiinii baa timaadeen dadkiinii baa u timaadeen oo idin soo dhaweeyna Durxmeenna waxa la cali Durxmeen xagaas isnagu muqayo wala sugaya waa suldaankii Cabdalla Durxmeen ayaanu halkan ku soo dhaweynaynaa sida hore u ogeydeen insha Allah ta'ala qalbi furan iyo gacmo furan ayaanu ku soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay ku soo dhawaada Soomaaliland ku soo dhawaada gobolkii Sanaag ku soo dhawaada magaaladii Xiisxarago inamadayada waxaan noo yimi waan ku faraxsanahay dalka iyaga Soomaaliland yimi sidoo kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay Suldaan Cabdicasiis Maxamuud Afguduud iyo nabadoon Cabdilaahi Saciid iyo caaqil Cawil oo Cabdi oo iyaguna ka mahad celiyay sida ballaaran ee lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa anagu waxaanu ka nimay xuduudaha cirifyada bari ee Soomaaliland waxa laga yaabaa reer Soomaaliland inaysan dhab ahaan shacabku ama daayirtu marka juqraafiyada taariikh dhuleedka laga hadlayo inaysan u xisaabsanayn deegaanka aanu ka nimi waxaanu u nimi xukuumadda iyo golayaasheeda kala duwan waxaanu ugu nimi sidii aan uga wada xaajoon lahayn xuduudaha beelaha cirifyada bari ee Soomaaliland insha Allah bidnillaahi kariim waxaan mar labaad ka mahad celinayaa soo dhaweynta beesha Cabdalla Durxmeen ay u sameeyeen guud ahaan beesha habar jeclo iyo beelweynta Soomaaliland aad baan uga mahad celinayaa waxaan rabaa hal inaan iftiimiyo badi dadku waxay isku qaldaan oo madaxa la isu galiyaa Cabdiraxiin Ibraahim Majeerteen iyo beesha Cabdalla Durxmeen ee habar jeclo taana waxaan rabaa inaan idhaahdo in dadka ay u kala baxsan tahayo cid waliba ay garan kadho ama ay garato waxa laga hadlayo iyo ujeedada laga hadlayo arrintaas in la kala fahmo iyadana waxaan rabaa sidaa inaan u kala gareeyo oo aan u cadeeyo insha Allah Soomaaliland xuduudaheedii way sugtay waxaanu rajaynaynaa in i'tiraafkii waqtiga dheer lagu taamayay mar haddii Eritrea ay siiday Ethiopia ay siidaysay Eritrea Djibouti ay siidaysay Eritrea dabcan in Soomaaliya ay siidaynto Soomaaliya ay siidayn doonto Somaliland intana soo dhaweysay intana sugaysa dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bacda salaan aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa shacbiga qiimaha badan ee noo muujiyay soo dhaweynta walaaltinimada iyo ehelnimada ay ku dheehan tahay iyo wada dhalashada aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waanu idin nimi waa idinla joogi doonaa haddii lahaydmo dad iyo deegaan iyo dawladba waa idinku soo kordhin doonaa Cabdiraxmaan Abdillahi Fantastic Ariel TV Hargeysa